هاي والله كنتي كنت في وأنا بدل نشأ وحكي على الموضوع أيام كنت عارفة كان هاي اللي قاعد ضيق وحضرنا يوم ما كورينا كان الله أركيها الإنجليزية المقلي أكتيك وشاطئ ما أنا بحلو وثم كوري أنا أضياش السماء لان مدحنا في الصلاة تا تدخل مرتين كود وحلقوا فيديو وحنجي على أنا كان ظهر له تسعة وقع بيتيك دول marka hore waxaan oran karaa horta labadan qodo wada fadhiya gool ma gaari karaan iyo say u wada si saxda ah ma tahay marka hore inaan taa ka hadlo taa waxaan oran karaa maamaha Soomaaliyeed baa waxay jirtaa aroor oo manawi macnaheedu wuxuu yahay haddii dadka aad u baahanayso dawladda biyo soo xadiisaan laakiin hadda dadka oo ma ku soo xadiiso waxa weeyaan waa aroor oo manawi Soomaaliyeed jirta waxaan kaloo afaynaana sida ay ku wada heshiisyada aan jigan madalin labada qoloba waayo Soomaalidu waxay wax ku keentaa waxay sii waqtay oo dhameeyay iyagoo ka wada hadeen laakiin dad ajaani oo shir saaxado soconaya inaan kan gadaleeyay baan kaba talabaad waxa weeyaan labada qolobo waxay ka baqayaan shacbiga qolada Soomaaliya kuma diiran karto kuma ka shacbiga inay wada soo noqoto midnimo ay dalka ku soo noqoto ka taliso qolada koonfureedna ma noqon karto iyadoo Soomaaliland baa noqon labada waxa weeyaan ka qiyaamada Soomaaliya baqay isku go'aanka ku diidinaya go'aan ka tarin kara ma aha dadka oo socda marka aan ka soo noqdo waxaan leeyahay marka hore anigu hadda Sheekh Maxamed Cabdi Salaam dhawaa ku qoornay waxaan rabaa markay doonto taariikh fikriyan waxaan aaminsan ama Soomaaliya ka soo jeedo mowqifka shacabka qoosay abadna la qaba haddana waxaa siyaasiyiin Soomaaliya ka tirsan marka hore ee walaaltinimada ahayd ay ku timi siyaasiyiin waxa weeyaan waxa qaba in halkiisa ama walaaltinimada Soomaaliya jacaylka ay meesha ka hadlo hadday arrin dhacdana dawo ay u baahan tahay waxaan rabaa anigu marka hore hadda Sheekh Maxamed Salaam soo jeediyay dadka waxa ku yiri marka hore anigu afarka intii Soomaaliya waa mutaniyaday qiimada aad ka hadlaysaa dadka ka tahay runtaan ku keenay waxa waa diiday koonfur baa samaysay iyaga oo dadkii ka jira oo ku qaybay iyaga dulmiday iyaga xasuusanay iyaga mujtahidinay haddana maanta Soomaaliya dad haday samaysay wada hadalladii soo fariisatay oo ay tiri oo haddii aan la leeyahay qoraatay walaalaha baabasho iyaga kale ka rabo afarka inaad keentaan dadka Soomaaliya ku aqbay go'aan waa mutaqin waa boosay wala doonay wala la joogay iyaga ku markaa hadda iyaga walaaltinimada maanta hadda rabtaan ay dadkii ka tahay waxaan rabaa inay afar hadla timaadaan ma ku yaqaan waxa kaan lagu shaqayn jiray ku diilayna taasina waxa weeyaan walaalaha kama muuqato walaalaha iyo talabaad waxa jira waa marka hore waxa ku luwayna garataan iyada ku jirta تبوتي هو كلام وتصعد على مقام اللغة من نفس الصومالي فيمكن أن فرطة لغة الطلبة محاولة هو يكوتي حاول شرط الناري عن فرطة وشيء جهاز أصلا لك ورأي من الترم والسير وحيدا يعني صومالي هو إذا الدكتور كفضا وهو يمكن أن يكوتي وحاول يطلع أنا برضو مرة هوري مثل محاولة يعتمد على الضبارات الأفريقية يقول اللي أفريقية أكاد حقا الأفريقية النوة دي هورما دبوك هذه مركة شوك ما لقي يا بعض انت واحد سوق عدي ودمشي سيئة معركة انت ودان سو من عكرتو مركة هرابة إلا ودهرو إن سيسيئة كتمت حتى نبقى عنكو إنو سيسيئة ونقون دون هدي من نمت دونيان هدي كالقوينيان وصمال داني وحبادي نبقو حرنين أنا واحد دبا إن الصومالي وربنا وحويا مرة الصومالي لأن مرة واحد تأكيد وراي ونوضعنا إنها يوم مركة هوري يقول أبراهيم وضعنا وضعنا الصومالي إنه أبراهيم لكن كانت في كل شيء السلمات في حوالي عمين قبل البلطان وتكلم كهو أنا واحد دبا معطنا وحوالي يعني أنا كنت يوم بعيني وأنا الصوماليين بالكل خلفها يقوم يجيبوا أي حاجة كتانا كيف يا واحد ربنا بيتنا سيارة كيوان وعرفت هاي الجنابة هاي طاي سيارة أول يتقالي تاري تقودي ولا قد كيوان ورمكت تشتري كانتو سوالنا والسؤال كتا وحالي ولا هاي حتى يكيناني تكت سوالنا مركز تحضرين وأنا واحد حفظة هنا الكتين تقولي ولكل من الخسيقة تيوتيكي والدولة سوالات نيتي في السنة كلمة ولدي سوالنا مرة تشوف الكتورتي بالقوعة كتوشي لما تسوهدو بالنوع الكل بالنوع الخفابري كبيرات that we are wrong all the time فبعطا يسوالنا الشعر يبقيانو مرة بخلطانين وحنا كعبيان وحنا كقوعين وحنا كعبين وحنا يسيانو تقول بانيين مرقوين انتاك أنا أولي هذا مركز waxaad ku talinaysa haddaad soo koobto taladaadii oo kooban maxay tahay waqtigaan ugu soo yaraanayay
aqoonta badan ee bulshada Soomaaliyeed ee qaabka waxqabsiga maanta ay u wadaan dowladahan iyo ragga jooga dowladda joogtana waa tii ugu ayaa dareento arkaan si kala fogeynayay waxaana gabadha marka hore walaalaha konfuritaanada xaqiiqa waa laga qootay waa la dhaqaajiyey waqtigeedii uu soo gelay inamadii maanta dadka ka nool boqolkiiba 10 dadkii dawladda xasuusnaa kama noola way adag tahay in laga hawlgalo waayahay xukuumadda jooga wayna gartaan sababtii ay ku soo noqon lahayd oo ay iyaga ofarku maanta ka yimaadaan Soomaaliya ofarkeeda u geysay taaba waa anaga inay yimaadaan dadka koliya wada hadalku uu furan yahay markii wax walba oo shacbiga u yimaado waxaa yaala waxa kala meeshu kama badnaan karto in dib Soomaaliya hadday wax macquul ah oo ku iman karto ay muuqato